الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى كتابك القرآن كوحو كليه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. wuxuu ilaahay inoogu sheegayaa aayaddaas inaynu dikriga ilaahay badinno, subax iyo galabna ilaahay tasbiixdiisa iyo inaan xumaan oo dhan ka nasahno aynu wadno. Sida culimmadu ay kutub badan ka qoreen, dikriga ilaahay, xuska ilaahay oo la badiyo wax badan buu dawo ka yahay. nin saxaabada ka mid ah nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam, wuxuu ku yidhi: yaa rasuula allah, ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calay faأkhbirnii biamrin atashabbathu bih. wuxuu yidhi rasuulkii allow, shariicadii way igu ballaadhatay, waxaad ii sheegtaa shay aan ku dhego. markaasaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wassalaam: laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah. carabkaagu yuuna ka qoyin, carabkaagu yuunan ka qalalin inuu ka qoyan yahay dikriga ilaahay. adkaartu way fara badan tahay, noocyo kala duwanna way leedahay. waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaynu maalinba wax yar aynu soo qaadanno haddii ilaha yidhaahdo. waxaynu maanta wax yar ka taabanaynaa qeyb ka mid a adkaartaas. wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wassalaam, xadiid xasan ah oo imaamu طabaraani uu wariyey: akhiruu min garsi اljanة fainahu cadb maa'uhaa طayib turaabuha. waxaad badisaan buu yihi nebigu calayhi salaatu wassalaam inaad tallaalataan geedaha jannada oo aada badsataan tallaalkeeda. jannada biyaheedu way macaan yihiin, ciiddeeduna aad bay u wanaagsan tahay. faakthiruu min khiraasiha, tallaalka geedaheeda ead idinku naftiina u tallaalaysaan badiya. nebigu isagaa sheegay calayhi salaatu wassalaam waxyaabaha qofka uu geedihiisa jannada ku tallaalan karo ee uu ku badsan karo. wuxuu yidhi: laa xawla walaa quwata ila billaah. ereygaas ama kelmaddaas ayuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wassalaam inay tahay qofkii oo geedihiisii jannada beeranaya oo tallaalanaya. waa waxaan qofka dhibaynin oo aan culays ku haynin. isagoo jiifa ama fadhiya ama taagan ama shaqaynaya ama gaadhigiisa wada ama lugeynaya ayuu qofku ku celcelin karaa. mar walba oo uu ku celiyana dhirtiisii iyo geedihiisii jannada ayuu beerayaa qofku oo uu abuurayaa, oo wuxuu ka shaqaynayaa siduu ilaahay jannadiisa kor ugu qaadi lahaa. waa laa xawla walaa quwata ila billaah. nebigu calayhi salaatu wassalaam fi saxiixayn min xadiidi abi muusa wuxuu ku yidhi: abu muusow, oo abu muusa alashcari cabdillaahi bni qays radia allahu canh, ma kuu sheegaa kaydadka jannada ka mid ah, kayd janno oo meel kuu yaalla oo meel kuugu ururaya ma ku baraa buu yihi nebigu calayhi salaatu wassalaam. wuxuu yihi: waxaad badisaa laa xawla walaa quwata ila billaah. kelmaddaa badi buu ku yihi nebigu calayhi salaatu wassalaam. waa kayd janno oo meel kuugu ururaya oo meel kuu yaalla. waa kelmad runtii aada u macno weyn, aadna u macno ballaadhan. qofku wuxuu meel iska dhigayaa oo uu ka beri noqonayaa awood iyo xeelad, isagoo labadaba ilaahay u daynaya tabaaraka wa tacaala. wuxuu muujinayaa dacfigiisa iyo addoonnimadiisa iyo inuuna lahayn xeelad iyo quwad uu wax ku qabsan karo oo uu wax ku samaysan karo hadduunan ilaahay u gargaarin tabaaraka wa tacaala. wuxuu muujinayaa dacfigiisa addoonnimo. ilaahay buu quwad iyo jalaalo iyo cadamo iyo powerful inuu yahay uu waxa weeye u sallimaya oo uu rumaynaya. aan badinna walaalayaal, carabkeennana yuuna ka qalalin dikriga ilaahay oo uu ka mid yahay laa xawla walaa quwata ila billaah. wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin.